سيبا لترجمتي واي هبوا كدنبيه gabadhii baa TikTok waxay iga aragtay Snapchat ka waxay ku tirnaa ninkayga ma ka hadhi waraaqda ha isiiyo haye ma laba sano ka hor buu ku furay oo bilaa waraaqe baahan ku waay hebaa kadambeeye gabadhii un baa ku tir wariyaahe amba waraaqdayda ii kana bacarutaada u kaala tii hore soo ninkuba intaas uu doonay waay adarkii aan iibiyay iyo lacagtan siiyay gabadhii buu geeyay الله باي عذر بابي أنا أركي كريا marka xisaab baa ka maqan adigana maxay iga maqnaa weeyday 500 faran oo waxaan ku uri kaadooya iyo 300 cadar ka u yar 200 yahay waxaan ku gabadhi suuliga ku shuushay meelaha la wareejinaysa marka cadar daba waan ka xanaaqaya marka ma cadaradii marka muuqaatay damay gabadhii hore uu ka soo tagay cadaradii uu geeyay ku naagta maan doonayna cadaradana waa kuwan hadad gurigayga ii ogolaatay okay naagtuna waxa ii keentay waa waxa suuliga ku dar amba qaado amba daadi maxaan ku filayay qofka marka cadaradaadii kuwaagii buu u geeyay miya mise kuwa isaga u soo iibisay anigu kuwan isaga u soo iibiyo gabadhii u geeyay ya lacagtii ya wixii iyadu ma cadarka ragay marsataa marka maya ma fahmaysid amba daadi amba guriga iskaga shushubo anigu laakiin rag ba cadarka lagu soo jiida waan ka hor joogaa maba marsanayo ma rabo amba suuliga ku shub amba walaaladaasi waa cadar qaaliye amba asxaabtaada si marka gabadha la cadarada dadka u geeyo waa khaldan tahay naya wad khaldan tahay meeday gabadhi hoostaasay joogtaa marka waa gaano cadarka waxaas iga soo maray maba arki karay cadar la isku shubo nuurkan galiya waxay ku tiri markasta uu ku xasuusanayaa bay ku tirmay loobayo samoogid haddii bay ku tiri aad lacag uga baahatid uu ku siinayaa ad weli ma wacday ninkii kii cadarada ma wacday naya hay soo wicin bi wada akhlaaqda inta message tamba hay soo direen hadii kala blog iyadu waxay ku tiri kumay loobay ku tiri luul baa ugu qornay soo qaba maxkamadda luul baa ugu qornay kumay loobay ku tiri maya cadare waxa laga yaabaa gooni u socday cadarada iyadu ka hadlaysay iyo barfuumadii ka hadlaysay ma kuwa qaldan baad soo iibsataa laga yaabaa kuwaas ku ana dayma fahmisooy kan anigu lax badafta cadarkii iyo bootarkii iskaga sii dhigay ee isagana u geeyay maya kuwa samboor ku kiciyay baad u marsatay marka kuwaas ka baxsaday maya wallahi cadar fiican ismaal wallahi cadar fiican bismillah markan gaariga kor waan isku sii jabin jiray quraarad maxkamaday shaxshaxda la isdheeriya cadar ma ahayn shaxshaxda shaxshaxda waa ogolahay laakiin qasaar burbur baa igu dhacay de markaad inaad socoto waxaa la rabaa markaad soconaysa sidaa inaad isku rogrogto oo aad wacdana dhigto inaad cadar intaad isku shubtaad seexata lama rabo inaad bootarka marsanay qalansunaha marsanay ee dharka u dambeeya xidhanay ee duhurka la ballanay casarka la ballanay ee barqada la ballanay ciyaalkii xaafad u geynay bootarka meelmeero ma 5 bilood baa tahay bootarka maxaad iskaga shubaysaa marka waxba kugu dhinaa bootarku kii lagu shubi jiray miyuu ahayn ilmaha yariiska karinjiga dumarku marsada mashaan makeup aan marsada bay ka wadaa deynanta waxa ma fahmaya labaa bootarka waxaan garanayay kii caruurta yaryar lagu shubi jiray waan garanayaa waan yaabay qof weyn oo bootar isku shubay makeup والله ده waxaan ku qalbigay dhaqaaqsane lacagtii waxba marka isagi ilaahay ku boogadayo amiin laga yaabo meel kale ka gaabisay wuxuu u noqday ninku cadar niyo cid iskuma jeclaatay soo moogid marka ka gaarisanta wax loo furaa ma taqaanaa waxaad arkaysaa hadda gabadh ay ka jajabanto ilaahay xaalkeeda ogiyo ninku iskula joogo iyo naag daadixo markiiba lagu ordo maxaa looga ordaa ma taqaanaa naagta de meelo badan baynu ku fiicnayn marka aad meelo badan iyo ku fiicnayn baan wadaynaya socodkii baan garanayn waxa la rabaa markaad barfuumka saas ugu shubto inaad sidaa u hormarto nona Cabdiraxmaan markii waxaan ku aan la ballamo 10 meelood baan iska jabiyay dharka boorsada muraayada wax walba waan isku eegaysii marka walaala nimanku waa kii alla ku sakharatii hore oo saa u kala dheer buu waxaan ku yiri naya joog taynaagteedii baan rabaa xataa agteeda yaan ku gaar marka walaalo aniga iga daayay walaal cadar dambe ma doonayo meesha waxaan soo qabsaday gabadha cadarka ina cadar dambe ka hadla ma rabo naag sheegaysa wasakharka
way waa soo qabanaynaa waa way soo noqonaysaa luul baa la yidhaa gabadhaasi adiga horta jarmalkaad joogtaa soo maa jarmalkii bay joogtaa jarmalkii xamdi carab baan u sheer garanayaa marka iyada kuu sheegaysa maya cabdiraxmaan jarmalku waa meel lagu jabay isilaali dhawalaalaynantan حمد عرب يدا كورس سينيس حمد عرب بان كوغو شير غرانيا inaad حمد عرب يدا gabadha joofay jahorada u dhalatay حمد عرب ee dhulku markuu gariirayo u gariira dhulku marka halka socoto yada qabqaba ku baraysa qaab qaldan baad wax isku shubtay dalgina waa ka gubtay war ma taama doonayo mid kale aan rabaa luul حمد عرب موقت جبجد بوا شعيل سعونية وسوقه حمد عرب هدي ما رت واحد بدن كبرت واحد بدن بيسكها بدل ولا على قبل هي سوقمني قد إن قلبي قاعد دقاقي أنا قبلي هرم ما نسوق رأيه هي سوقمني قد نسوي عايز حمد عرب نوغو شير غري ها قف ugu jirto inoogu sheer garay حمد عرب baa ku baraysa halka igu jir muudka igu jir sida tasniim ya hinda miya hadle iyaan u dhiibaa miya ya hadle تسليمي سولو ساقة تسليم بس وقف ستة مشاع هيدا وانا كلام بنهاي فينا تسليم والله انا راز نقطة تبوق وتبال مقصين عارفة مليون مر حبيبي ما هي قفكة مربو طلع لها بس احساس لها مليون سبيل كان مركز برتين ايش وجوتين ولو قدقوا وحال هاي جبري سبيل كان وحبا كنت سنة ina gursanayso wax maqalnaysa joog way ka diiday qof kale la soo hadlay way ka diiday dadkii way ka wada diiday inay guurka baajiso ee ninkaas ka deyso ee saas ku nabad galaan way guursatay waxa ogaa oo meeday qabsaday markay dhashay kadibna ee labadaba isku la dhaqaaqeen yani waxyaabo xun ee labadaba sameeyeen marka wixii waa dhamaadeen aniga la aniga uu weynaa uu socdaa maxaa hadda keenay marka inuu tubrac u soo diyo برا الحكي وأسوبيا ودرستي لو ودي جاي الله نكان كتشوف تاسون وده بتشوفه هذا الكيان مالك قرطة أنت نوشة أنتو أتنولي كما هراي قبل ساس ومالك سون صوت برا جاني صدوقه هلا وتبرا أنا كحالنا ميدايان ميلان وانين ضله دنتي سنوجاري ما كهراي حتى ما في رنايو روح جبدي نوادي قيس الثاني gabadhiina cunugay ku haysaaye dhibaato waxa ugu filan dhiigaaga ay korinaysaa intaas oo dhibaato ugu filan faraanka qaxta u garlaa because dantii uu ka lahaa ka weynay cunugiis dantiisa ka weyn wala hadda 2024 leeyaan ma dhalay marka ninka waa soo diray waa loo soo adeegsaday mana haraayo taas ku saaxay kuna soo toosay intaas aan sheegay ninkan sheekadu xagee iska qaban laaday yarkan laley U-boss gabadhii hani la yidhaa uu guursaday iyo isdee hadda way isguursaday bay laley isagu markaa gabadha hadday gabdhuhu is hayaan gartayo dee dumarku dee waaba is qabsan karaan isagu gabadhan sababtuu ugu soo jawaabaya markaaba uu caaya maxay tahay kani cabdiraxmaanow niyo waa ku salaamay ma garatay inaadan roblo inaadan waa kaa qaaday soo dhow waan dhowahay waa niyahow maanta niyo balaayaan daawaday ma garatay labada ninoo waxaan daawanayay ma dhoweyd life ku jira way niyow ma arag weligay iyo allahay tiktok intaan daawanayay nin in adeertii caayay oo weliba nin shisheeyaa intuu soo qabto kule ku soco weligay ma arag kan ka hor moogta way reerkaasina waa ku ceebaysan yahay niyo ma garatay maanta waan la yaabay hablahoogii raggoodiiba inta lasoo wada qabtay oo ayaa lagu dhacaayay inantooda ma garatay inaadan waa kee kan koofida xidhan waa in adeertii inanta la caayaya ma garatay way niyo waxyaabahaasoo kalena soomaalidu way ka damqadaan mogta inuu nin shisheeye ku agcaayo naagta in adeertaayo mogta oo waxyaabaha ugu xun weeye way marka kaale caaya buu lahaa markaa aniga caydaba aan u dhageysan horta niyo qaabkaasaan la yaabay ma garanaysaa markii ugu horreysay way niyo marka labaadna waxaan la sii yaabay kan malyuun rooble qabay ee nacaskaa maaragtay weyn ee doqonkaa kaas waxaa u taagan yahayba inankeeda curad anaa u keenay oo anigu iga weyn yahay buu taagan yahay mugta
كم مختار كان ميا mukhtaar kan haa wuxuu taagan yahay maryuu rooble inankeeda curad anaa keenay yurubo aniga buu iga weynaa buu taagan yahay mogta ninka مختار كان waxa way wad garanaysaa odagii Hargeysa la oran jiray Faarax Kutiiriya miyano eekay uu eegay naclaa bii ku yahay waa Faarax Kutiiriya weeyaa taba waa Faarax Kutiiriyaha qurbaha weey kan yuu boos la yidhaahdana dee waad ogtahay hani baa gursatay mogta isaga waxba gursan kari maayo kan caqli ku gursada xitaa male way oo isaga la qabaa ma garata waayo naagtiisoo naagta kaliiska celin karta sababta loo adeegsanayo in adeertii loogu garaacayo ee lagu leeyahay ee uu soo furanayo qol xaaskiisiina isaga hurdo ee uu isagu dumarkii xitaa ugu jawaabayaaba dee maskaxda ragga geli laniyo ma garata in adeer way daniyo how mar dhaweyd laakiin niyo marmar sidaad waxaan qaldan had u arkaysa aad ula yaaban tahay marmar baad haddana dhageysanaysaa qofkan wacaaya mogta aadiyaad markaa mid baa u soo koray mogta markaasuu ku yidhi niyo how isagoo si dee aad biniaadanimada ka baxsan u caayaya inanta markaa wuxuu ku yidhi niyo inanta niyo walaashaaya maxaad u caayaysaa buu ku yidhi mogta markaa isna wuxuu ku jawaabay niyo aniga walaashay maaha qofka walaashay ama walaalkay noqonaya waxa weeye qofkaan ammaan ka helo buu yidhi mogta way oo de qof aniga markaa iminka wuxuu ku yidhi ilaa weekendka anu qol soo furan maaye adigu maanta dartaaban qolkan u xidhayaa inantaana faraan ka qaaday adigu mas-uuma ka tahay buu ku yidhi iyadana waaye afkeeda way niyo si walbuu qofkuu qaldan yahay marmar baad yaabaysaa mogta waxa kelmadaasaan la yaabay mogta way anigoo la yaaban caydiisa ayaa haddana kelmaddaa markuu yidhi la yaabay isagii haddana mogta way niyo markaa waxaan is idhi niyo inantan maryuu rooble laftarkeeda niyo bilow ilaahay wax ka jarayaa niyo waa suuragal waayo meeshay lugta geliso de waa meel qarmuun bay lugta gelinaysaa mogta inaader niyow iminka laba nin oo yaryar maaha weliba waa dee kani waa dhowr iyo 40 jirkana waa 50kii buu hor u dhaafay laba nin oo maanta dhalinyarnimo wax u geynaysa la dhihi kara maaha ma heestii caqliga laga caruuroobay miya dee mise dad waxaa jira fisikaal ahaan un koroo caqliga ka korin waa niyahow waxa weeye laba dhaqan xun oo weliba dhintay dee inaadeer weligii ma arkuun oo kale dhacan lahaa boodkiyaal ma garatay weliba kaaga daranka anu waxaan la sii yaabanahay kan mukhtaar isaga waa caan mogta waxaa la yaabay kan nacaska ee koofiyadda xidhan ee bidaarta doqonkee berigii dhawad la gursaday isaga waxba gursan maayo waa la iska ogyahay waxaan la yaabay in adeertii buu caayayaayo markaas weliba nin kala shisheeyo isfureen iyo naagahay col yihiin intuu soo qabtay ayuu ku leeyahay karbaasha markaasuu ninkanina caddaymaan hayaa ma sii daaya codkeeda waxaasay gurayaan mogta wallaahi bilaahi tallaahi marbaas idhiyo tiktokan salaadeena tukataba tiktokan ajarkeeda qaateen iyo ma iska saartaa maanta waaban yaabayba dee inaadeer waxaanoo kala dhaqan xumo oo tii u dambeysay wallaahi bilaahi tallaahi inaadeer aad iyo aad kaladan reerkan hawiyana waxaan ku leeyahay inaadeer hablihiina idinku cacaaya haddaad doontaanoo bal dadkan shisheeyaa ka xeshada waan waxaan caqli ma laha qof xunba inaadeer reer kasta qof xun inaadeer waa leeyahay dama inaadeer reerka oo dhan baa ku socday inaadeer reer dhan oo barbari iyo qof gabadh caaya ka waran reerka markaa waa kuwey ma kuwa ninkan koofida ninkan yuboson hawiyaa maaha inaadeer baasha meel iskuma sheegee maraxaana maaha inanta kala tegina soo inaadeerti maaha dee intuu niyo inaadeerti hadda isku dhaceen isagoo afkiisabaa kaga cadgoosto ha qaldamaba intuu inaadeertaha nin shisheeyaa intaa usoo qabato cay maad ku odhan kartaa maanta may de taasuu samaynaya inaadeer taasina waa qalad wey waa gudnimo waa inay iska qabtaan iyagu waxaasoo kale xitaa waa foolxumo ma garatay markaa aniga ku salaamaya inaadeer way warniyo cabdiraxmaan oo sheekh meheriyaan doonayay ma hadli karayaa sheekh meheriye saaka maaroos baad ahayd su-aal baan weydiinayaa ma garanaysaa marka hadduu hoos joogo bal eeg bal inuu lambarkiisa anaa hayo waluuqan kugu soo dirayaa maxaa ma nin baad heshay waar maya nin waan haystay anigu awalbe niyo waxaan maqlay ma og tahay aakhare marka la dhinto xuuralcaynta
muxuu hayay dumarka ragga waa loo sii sheegay baa la yidhi intay dumar helayaan iyo xuralcayn ay helayaan iyo waxa laakiin naagaa looma sheegin ya adduunkiiba waxba kuma haysid horta aakhira kuu dambaysa horta adduunka wax ku hel adduunkiiba waxba kuma haysid oo dad dawaqso wadiga disti subaxda horeba madaxa kula jira adduunkiiba waxba kuma haysid maxaad aakhirad ka sii fikraysaa markaa horta sugtaas su-aashaa dhamayste markaa waxaan maqlay inaad dadan hay ku qoslinayaa waxaan maqlay ragga waa loo sheego waxa lagu intaasoo naagood bad guursanaysaan waa sidaa laakiin nimanka ayaa loo sheegay laakiin naagaa looma sheegin markaa waxaa laga baqay baa la yidhi dumarku inay muran geliyaan oo yidhahdaan kaygii horaan doonayaa iyo mid sidaa wag baan doonayaa war ninkiiba telefoon baa soo galay telefoon baa soo galay haye haddaba jannadan iyo aakhiriya waxaan inoo dambaysay ifkii baan joognaa ifkan horta ninaan kuu soo raadiyo haddaba cabdiraxmaan dee qashqashaadiga daan su-aasha dhamaysta sheekuna ha dhegaystee ha laiga jawaabo ma garatay marka waxa la yidhi dumarka looma sheegino waxaa laga baqayaa inay dumarku muran geliyaan oo yidhaahdeen ama ninkaygii horaan doonayaa in lay keeno amba muxuu hayay intaasoo nin ma garanayo dee waxay culimmadu ay u sheegi waayeen naagtu inta qof ee ay helayso xilliga ay tagto xuralcaynta teeda kale waxaan maqlay dadku markay halkaa tagaan waa dad wada qurqurux badan lacala hadduu nin madoobi qabo marka jannada tago muu caddaanayaa yaa ma nin cad buu noqonayaa ma muxuu hayay xitaa waxay yidhaahdeen dee sheekhyadu intaasoo quwad baa ninka la gelinayaayo ciyaalba dadku way wada yaraanayaan waxay noqonayaan 20 jir marka waxaan doonayay inaan ogaado uu sheekhu ii sheegaa doonayay gabadhu imisaa loo ogolyahay xuralcaynta inay guursato waxa weeye haddaad sheekh ibraahim baa jooga sheekh meheriya xataa uu jooga haddaad u baahantahay luuqaanku yaad ka weydiin doontaa hadda ma joogo waan shaqan gelayaa abulaha hay waa la qooqeeyo naqnaqyo taktaqo markuu aakhiraaba dee lasii xisaabsaday baa halka kuraasta la dhiganayo wax waa naqnaqa kalluunka iyo malayga iska yaree adduunkiiba waxba kuma haysida maxaa aakhire la gaadhaa sida yaaska waryaa waad intuu baraacisaa ka waran waryaha waad intuu baraacisaa inaad iga dhin laakiin muxuu haye aakhira waa sii xisaabsanayaayo de raggiiba waa loo sheegay xisaabtii waa in naagahana loo sheegaa intay xisaab ku helayaan ragga waa loo sheegay waxay intaasoo naagadood helaysaan ragga dumarkana waa in loo sheegaa oonu ogaanaa way yaaska sii daynaad soo dhow salaamullah waxaan u malaynayaa barnaamijkaana ku socoteen dad waxaa imaanayaba howlo kala gelayo sheekadii socto ninba meel buu meeshiisii dee buu ka xidhanayaa ku soco ninba meeshii buu taabtaa baa layidhi waa sax maad ku socotid adiga maxaa ku xiijay annagaa weydiinay oo halkaaga la dhimi nafisa ku soco marka horta barnaamijkan ani horta waxaa usoo qabsaday gabdhaha ma ahan inay ragga intay ayaga dulmiyaan inay dhahaan annaga waa nala caayay waa nala bahalkii dumarku ayagu waa inay xishoodaan qofka biniaadanka adiga haddaad caydid oo aflagaadaysid oo waxaan ku dhahay cirdigiisa iyo sharafkiisa iyo waalidkiisa ku xadgudubtid de qofkani malaa'ig maaha wuu xanaaqaya marka dumarkeennana annaga inta badan waa naloo yeelyeelay waxaa noogula yeelyeelay inaan ragga cayno aflagaadoyno aan waxaan rabna ka samaysano hadhow nala dhaho waa dumara iska daaya ayadaa annagu dumar haddaan nahay caqli iyo maskax iyo waxaan leenahay garaad nagu filan ma ahan inaan saa rabna u dhaqanno ma ahan inaan dadka iska cayno ma ahan inaan iska soconno sidii xayawaankii markii lagu leeyahay waa dumare waxa weeye ii sheeg hal iska dhaafa qoftani waa dumare dee waxaa lagaa dhigayaa inaad tahay qof bilaa caqli ah caqligaagu ha ku siiyo inaad qofkan aad ka xishootid aadan aflagaadayn inaadan cayn inaad waxba u dhimin moor aad qof adiga caysid adna beri waa lagu caynayaa waxaa geysatid baa ku horyaallo wixii aa adiga geysatid
baa ku hor yaala dumarkeena macnaha wax badan oo loogu yeelay oo dhaqanka Soomaalida jirta ma ahan adduunka kama jirto naagtu haday ninka ku qaldanta xabsi bay u dhaadhacaysa adduunka hadad qof dishid te adigana waa lagu waxaan ku dhahay waa lagu xiraya lagu dhimayo dumar baa tahay halka joog laguma dhahayo laakiin annaga waxa weey waa naloo yeelay waxaan la leeyahay gabadhu ha caytanto waxay rabtay dhihi kartaa ninka ragga waa inuu ka xishooda waa inuu ka dambeeya waa inuu yeela waxa ma jirto waa inaad adigu dadka waa inaad adiga aad dadka tixgelisaa moor aad adiga dadka ka xishootid oo ilaahay umadiisa ammaan siisid adna ilaahay ammaan baad ka helaysaa umadiisa marka anaga dumar oo caqligan xun ee inaan ragga cayno aflagaadeyno oo waxaan rabna aan dhahno no ma shaqeynayso haddaad af inta dheer la eg wadatid dee cid kaa xishoonaysa male adna berri waa lagu soo fariisanayaa waa lagu caynayaa qof haddaad waalidkiis ku xadgudubtid oo qofku danqanaya hooyadii ku dhashay haddii maanta aad la caayo waad danqanaysaa nin ahow ama naag ahow waad xanuunsanaysaa haddii adiga cirdigaaga iyo sharaftaada iyo raganimadaada lagu xadgudbana dee waa xanaaqaysaa dumaroo marka ani waxaa leeyahay hal ka mid oo ah nilii yeelay waana dhaqanka Soomaalida inaa adinka edab yeelataan inaa xishootaan inaa ragga ka dambaysaan inayna hor cararin inayna cayn sheekada nilii yeelayna joojiya ani intaasaan idin sheegayaa edab yeesha tartiibtiina u socdo qofku soo raadsanaya ma jiro adiga hadaadan afkaagu inta ku dheer la ekeen cid ku iimaanaysa ma jirto cid ku soo raadsanaysa oo ku caynaysa oo ku aflagaadeynaysa wallahi inaysan jirin hadaad adigu akhlaaq leedahay meesha aad joogto edab ku joogtid marka dumarow edab yeesha gurihiina edab ku jooga ragga ka dambeeya ragga ka xishooda dee qofka kugu soo xadgudbo iska celin kartaa laakiin adigu horo cararin ragga inta soo uga baxaya way aad iyo aad inay dumarkuna ragga ixtiraamaan ragguna dumarka ixtiraamaan waa dee qurux badanta haddii la kala xishoo waayo ummaddu waa isku wada ekaanaya berigii hore ragga dee qawaamka ilaahay ragga wuxuu u saaray waa inay adkaysi lahaadaan gabadhuhu waa dee iska emotional oo wiigba isbuucba sibay ku jiraan xaaladuhu waa isbedbedelaa laakiin ninka ragga ah baa dee laga rabaa inuu adkaysi yeesho waxay ragga waaweyne kontinjirada inta meel soo fadhiistaan heblaayaa sidaana هلايا سيدان هاي محيبا سبحانك يا عادي تاسا وهذا عصا عادي سيدا محكمة دوك سلام سيدنا قيادة الأمان انت السلام عليكم سورو محكمة دوك هورتني ودو وايل بات هاي مش هوا كسود دهدي ماها با كادن بيسي أولا دهو نما ناق اسكي علن رق اسكي معليو يا اتكاد ما قادم بيز من قادم جي نينا كون جوابين رجنا وما جوابين هذا ها تيبا waxay ka dhigeen nima naag iska celinin rag iska maceliyo soo ninkii la soo gardareysto waa inuu gargaradii dirac soo xirtaa naagtu u factirinaya ma garantay adkaas markaa ma hadda haya way والله waxa socdo waa wax laga labooda aakhir zaman waaye